waxaan ka soo bilaabaynaa deganaansho siyaasadeed aan ka bilowno haddaysan jirin xasilooni siyaasadeed mainly waxaan ka hadlaynaa waa inaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe madaxdooda waa inuusan khilaaf ka dhex jirin waa inaysan jirin madaxweyne iyo prime minister is haysta waa inaysan jirin gudoomiye baarlamaan iyo prime minister is haysto waa inaysan jirin dowlad goboleedyo iyo dowlad dhexe wax la yiraahdo is haysta waa in la waayaa intaas markay dhacdo waxa abuurmaya waa inaysan jirin dowlad Soomaaliyeed oo caalamka dowlad kamida la dirirayso waa in la waayaa cid adduunka kamida oo la dirirayna ma jirto cid gaar noolena ma jirto waa inaan dhahnaa dowlad marka waxaan nahay xora oo tabar daran sidaa darteed cid kasta waa u baahannahay cid aan gaar ugu xirannahayna ma jirto marka adduunka col lama lihin Soomaalina col maaha waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeedna inay heshiiyaan caalamkana ay la heshiiyaan siyaasiyiintu halka aan ka bilowno intaa marka ka dhaxaysa anagu waxaan rabnaa marka in la mobilize gareeyo bulshada waa in la wacyi geliyaa waa inaan isu nimaadnaa oon tashanaa si rasmi ah u tashanaa oo aan dhahnaa seen cayayaanka nimanka seen isu dhaafinaa waa inaan isla soo wada gaadhno oo cashirku isku meel inoo joogo waa inaan aaminsannahay inaynaan hal tallaabo oo horumar qaadi karin wax service ah inay dowladdu samayn karin xataa dad inaan la caawin karin haddaan amniga la sugin amni kaliya maaha nimanka haddaan la tirtirin oo la isdhaafin wax aan qaban karna ma jirto waxba ma qaban karno haddayna amniga sugin amniga marka waxaan ku sii karnaa inaan kulligeen inaan amniga ka shaqo meesha gabadha Soomaaliyeed marka looga baahan yahay meeshaas waay waxaan rabnaa shacab culimadii iyo ganacsatadii iyo gabdhihii Soomaaliyeed ya qaybahoodii kala duwanaa ardaydii cid waliba inay dagaalkaas gasho oo intaan tashano aan dhaqaaqnaa rabnaa oo magaalada Muqdisho amnigana waa shaqeynayaan strategy-na waa la keeni doonaa laakiin magaalada waxaan rabnaa sideedaba ayada bal inta kale inoo dambayso qolof weyn baa saaran oo la leeyahay waa nabad dawladdu way joogtaa qolofka hoostiisana dixiriyadii iyo qashinkii iyo wixii oo dhan waxaan rabnaa marka inaan ka faydno oo aan dhahno kan laga soo qufo kan la nadiifiyo waxa la nadiifiyo marka waxaan rabnaa inaan isugu tagno oo aan magaaladeena nadiifsano oo meesha rabnaa dii karno koo inaan nimanka isdhaafino oo cirib tirno oo la waayo oo askari aan gabar Soomaali waligiisba wiil Soomaaliyeed ma guuleysan haddaan gabar Soomaaliyeed biyo iyo cunto ka dabooday waligiis ma guuleysan hadda tusaale hadda cusub waxa waaye deegaankan hadda dariskaana Soomaalida waa ogtiin weerar baa lagu qaaday Soomaa weerar baa lagu qaaday dhowr bari ku soo afjareen kuwii ugu darnaa sababta ma taqaanaa sababta waxa waaye gabdhihii Soomaaliyeed ee ariga joogay from Jigjiga ayaa soo gurmaday waxa waaye meel kasta waxay ka sameeyeen station ay ku aruuriyaan cuntada iyo biyaha iyo baabuurta hatta shacabka laga soo qaadayo oo lagu gurayo oo lagu geynayo dawladii marka ayagoo markiiba way dardareenba nimankiiba waa soo afjareen already meeshii waxaasna waxa waaye taageerada bulshada iyo shacabka waay marka aniga waxaan qabaa idinku aad u mahadsan gabdhaha Soomaaliyeed madaxay noo saaran yihiin wasiiradana way ku jiraan ilaahay idankiis kootadaas wax ka fiicanna way gaari doonaan waana waajib gabdhaha Soomaaliyeed in priorities kay leeyihiin iyo waxa ay mudan yihiin in la mariyo waa idin la qabaa dawladda programka way keeni doontaa way ka shaqeyn doontaa bulshada laga shaqeyn doonaa waxaan rabaa inay diyaar garoodaan waxaan rabaa in dagaalkaas loo diyaar garoobo culus ee soo socda shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus
xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha